dhagaxaan aad u jeeda aan galnaa oo hoggaan oo maalin ilaahay soo geliyo soo dumaya sax waa bili hadda aan soo dhaafnay nin baa naaga dhintay meesha iyada ee boloko ay ku soo dhacday sax maalin walba khatar far badan aan marnaa sax toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadanaynaa goobta dhagaxa guryaha lagu dhiso looga keeno magaalada Kismaayo. Goobtan waa halka laga soo saaro dhagaxa lagu dhiso guryaha magaalada Kismaayo. Waxa ay u jirtaa magaalada Kismaayo masaafo aan badnayn, waxayna kaga beegan tahay magaalada Kismaayo dhanka waqooyi galbeed. Meesha laga qodo dhagaxa waa meel buuraley ah oo ay ku yaalaan buuro waaweyn, waxaana dhagaxa buuraha intiisa badan loo isticmaalay dhismayaasha quruxda badan ee ka dhisan magaalada Kismaayo. Halkan waxaa subax kasta u soo shaqo taga dad kor u dhaafaya 300 oo qof, sida uu inoo sheegay Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dadka ka shaqeeya halkan. waxaad ka shaqeynaa kaawa 300 waa ka badan yihiin. Dadka halkan ka shaqeeya waxa ay naftooda ku jirtaa halis badan, qaar badan ayaa halkan ku dhintay iyaga oo qoysaskooda u raadinaya nolol maalmeed, halka kuwa kalena ay ku dhaawacmeen. waxaana keenaya khatarta ay dadkan u bareerayaan iyaga oo galaya meelo godad waaweyn noqotay sidii dhagax looga qodayay. Marka aad gasho gudaha godadka waaweyn ee buuraha hoostooda ah ee ay shaqaalaha dhagax jebintu ay dhagaxa ka qodayaan, ma kala garan kartid in aad maalin joogto iyo habeen midtoon. Shaqaalaha waxa ay isticmaalayaan tooshash ay doonayaan in ay ku arkaan halka ay dhagax ka jebinayaan. daawadayaal sida hadda idin muuqata dhabarkayga dambe waxaan ku sugannahay halka laga soo qodo dhagxaanta magaalada Kismaayo oo aad u jeedaan buurtan weyn oo gudaheeda ay dadka ka soo qodaan dhagxaanta. hadda waxaan sii galayaa godka, dabcan sida idin muuqata waa god weyn oo aad u weyn. waxaan halkan gudaha kula kulmi doonaa aan wareysan doonaa qaar ka mid ah dadka halkan ka shaqeeya. Mid ka mid ah shaqaalaha gudaha ka shaqeynaya oo la hadlay barnaamijka muuqaalka Jubbaland ayaa ka hadlaya khatarta ay kala kulmaan goobtan xilliga ay ka shaqeynayaan. aniga hadda waxaan ka imaaday gudaha hoose meel mugdi ah, waxaan ugu shaqeynaa tooshkan yaryarka ah. maalintii ugu yaraan adiga 10 bitri camal aan ku shaqeynaa, kan geli kan ka bixi waa iftiin ahaan haddana ma idla. meeshan waa meel mugdi ah, marka dawladda waxaan ka codsan lahaynay TV-ga Jubbaland in ay naga caawiyaan dhanka tooshka. meeshan sida hadda ilbaha yarka as sheegay toosha loo shaqeeyaa. tooshka batriigu waa batriyaha ee wax yar kadib meesha waa mugdi, wax yar kadib markaad ifisid waa ilaa macnaha batri laba amkii nuurkiisu waa dima waa la bixinaa mid kale la gelina hadanan maalintii ugu yaraan 5 joog 6 joogaas cunaa. waxaa kaloo jira firirka ka soo gaaray ninka bahashaas dhagaxaas lagu dhufunaa suruura la bahasha dhagaxaas lagu dhufunaa. markii lagu dhuftay ilaa indhihiya u dhow dhagaxa ka soo booday ishaas uu dhacay ninka dhaawac. oo kiyaala ma jirto oo kiyaala ma haysan. waxaa kaloo jira ninka waxaa soo suxuurta dhididkiisa adaarta adyaabisa ninka inta isku noolaa waa kuleel, meel kuleel badan oo macnaha nin ibn aadan hadii dad gashid as ku noolaa karin ilaa macnaha arsaqii meesha saas gali. insha Allah taala kulli waxaan doonaynaa in nalaga caawiyo. Mustafa Ali Cismaan waa aabe 6 caruur leh. shaqadan waxa uu ka shaqeynayaa muddo 3 sano ah oo uu ku biilayay caruurtiisa. markasta oo uu shaqadan ku jiro waxa uu ka walwalsan yahay in dhibaato ay ka soo gaadho shaqada dhibta badan ee uu hayo. saaxiibkiis oo isku shaqo ahaayeen ayaa ku geeriyooday shaqadan isagoo dhagaxa jebinaya ayaa waxa ku soo dumay dhagax weyn kaasi oo shaqaalihii goobta ku sugnaa ay ka qaadi waayeen dhagaxii ku soo dumay saaxiibkiis. bariyayna habeenkii oo dhan halkaasi isaga oo meed ah. bal Mustafa hay nooga sheekeeyo sidii ay wax u dhaceen. anaga dhagaxyadaana horta aan ka shaqeynaa muddo ilaa iyo 3 sano aan dhagaxan jaraa. sax dhagaxaan aad u jeeda aan galnaa oo hoggaan oo maalin ilaahay soo geliyo soo dumaya sax waa bili hadda aan soo dhaafnay nin baa naaga dhintay meesha iyada ee boloko ay ku soo dhacday sax maalin walba khatar far badan aan marnaa. sax saas ay tahay waxaan noo geynahayna dhibaato darteedana haysa meeshaan u galnaa. waxaan ka raadsanaynaa muruqmaal. marka dhagaxaan aad u jeedaan goynaa
intaasoo dhibaato ee naftadaayna maalin walba khatar badan aan galnaa saasaan xoogayna aga soo dhaxsanaa buurtaana u jeedo hoggaan aan galnaa qaar waxay saaran yihiin banjaraanjarahay gudaha kursi saaran yihiin waan gartay meeshan dabcan waa meel aad u khatar badan oo qofka muuqaalka arka uu xogaa aad buu uga naxayaa sax marka aad jabinaysaan dhagxaanta ma qaybta sare ayaad baartaan mise si hoose ayaad u qodaan buurta qaabkeed u qodaan qaybta koran isticmaalayna qaybta koran markaan isticmaalna kadib laba dhaxdooda mid hoos hadan saas hoos oo la sii degaynaa sax laba dhaxdaasaan ka qaadana jimalkan hoos iyo jimalkan laba dhaxdood korna ma jari karna dhagaxii waa adag yahay sax hoostaan dhagaxa ku jira nugeelan saas aan u raadsanaa ka nugul baad raadsataan haa waan gartay marka imisa ayaa buurtan ay qaadanaysaa inaad saa u qodaan oo gudaha inta ay la ekaato inta hoolkan masanada ay qaataa mise balooyin waad ka baxaysaan halkan wallaahi horta dhamaashadeeda ilaaha og wax hadda la dhihi karo ma aha laakiin ha ahaatee way buurtu waa aad ay u dhamaatay waxa u jeeda naftirkeeda waa buurti waa way baabaaday ha ahaatee hadda waxay u baahan tahay si hadda qalab oo meeshan lagu jibiyo sida hadda matoorooyin oo macnaha dhagaxa jara oo lagu jaro matoorooyinkaas naftirkooda waa u baahannahay in aan maarantaan gaari gacankan iyo waxyaabahan aad ku soo qaadaysaan waxyaabaha u baahan tihiin maxaa kamid ah waxa kamid ah matoor dhagaxa lagu jaro oo dhagaxyadan lagu jaro iyo matoor dhagaxa lagu jaro oo dhagaxa maxaan ku raadayay lagu gooyo oo qalabadaas saas aynu u baahannahay in naloo keeno aan ku xamaalano badilooyin waa u baahannahay sida maasooyinna waa u baahannahay adiga imisa ayaad ku guda jirtaa halkan aad ka shaqaynaysaan reer Soomaaliyeed haa 6 ciyaal meesha aan ku koriyaa aan ku biila meeqad ka shaqaynaysaa halkan 3 sano waan gartay 3 sano xasuusataa oo dhibaatooyin ka soo gaaray inta dhibaatooyin badan aan arkay oo nin aan ila jiro saaxiibkayga maalin isku dhintay aan u taagnaa بلوكدا هذا أي كسر عدي بلوكدا وين ماشي تعال نفتر كده أنا هذا جبي سمية ها مدان ها تنادشي صح ها أي كسر عدي ومدبدا مركا السكوب ما هذينا هوس لقى فوقونين كيسيس سيد لا صوص صار نقطة هل بين أسناق بري مركا ميتكي هل كان نينك كل انتي هل هبين نبو كجري هل هبين ها لا إيو مقالدي حتى ويشيا لكن ويشيشكي لقى السدية سحرير لا صوص صار وانقرتي مركان ويشكي حتى وقادي وإن لقضاي نقطة هوس لقى قضا صح سدية ميتك على صباحني وانقرتي أنت صور دباتان جا أيه كوه يسامر كسوح صاحبك أو هل كن كشغل جري أو دباتك سو قارتي أم نفتي سكوه والله درين آد وال صبحي مركان صباحها يعني وحنكو صباح حنكو قلا قد كان حد ما دمن دونتا مسحدوا دمن دونتا سداس أي تهان قد كان هبين إمالين أن أوجرا ميل كلن أدو ملهايب marka oo halkan aad ku jirtaan kuleelkan iyo environment-kan hawadan aad ku shaqeynaysaan waa hawo dhibaato badan xagee ayaad biyaha ka heshaan musqulaha xagee ka heshaan wallahi ni horta musqul ma hayno midda oon aad ugu dhibaataysanahay hadda ninkii caloosha laga qabto naftirkeeda meesha hadda ku xanuunsado hadda isla haddan meel hadda astagaaya ma laha oo sadda xanuunka haysto miskilaanta meel asaaday ma laha waa u jeedaan musqul ma laha ninka waa baxa buurtaan gadaasha iska firi dadkii soo qaawana dadkii maxaa ku yiraahdaa la fiirinaya isma iska firiisina taa naftirkeeda dhibaato aad u culays ah haysa sameeyeen wax aad u tagteen oo hay'adaha samafalka iyo waxyaaban waxaad kala xiriirteen ma jira idinka maamul inta sameeysateen si aad u heshaan meel biyaha ka cabtaan biyo nadiif ah ama aad ka heshaan meel musqulo aad isticmaashaan ma jirtaa inaad raadiseen maya niyo horta niyo waxa waay dadkan idinka naftirkiin markaan oo iimaanaysiin waa dhibaatadana hayso u jeedin naftirkiin inaad idinka naftirkiin aad u bandhigtiin aad u sheegtiin dhibaatada meesha nagu hayso idinka maalin walba hanoo imaana wareysan naga qaadanay dhibkana haay naftirkeen idinka naftirkiin waa u jeedin haynaad ka qayb qaadatiin loo baahan yahay mid anaga ma ahe idinka noo imaaday oo inta imaaday dhibaatadeena u jeedin mid wax ilka dhan ah inaga haduu ilaahay raadana waxa ka daawan doontaa telefishinka dawlad goboleedka Jubbaland baad ka daawan doontaa insha Allah oo aan filayo dadka inay arki doonaan muuqaalada noocan ee duruufta ku shaqeysaan sax marka halka wax ka soo saartaan sida hadda gaari gacankan dhagxanta aad ku waday sax xageed u sii iibgeysaan oo yaadi ka qaata wallahi horta anaga waxa waaye waa la isku kornool yahay dhagxan gudkan nin baa iskale ninki iskale oo iskale meeshan marka anaga dhagax aan soo jibino 5 lacag naga siina sax asana ku shilna u saaray sax anaga shantaas kunaan marka aan dhagax ahaanteeda aan qaadin asana ku shilna soo siigana anaga emergency-gaas isla mar aantaas lacagtii baawur ma raadin karno ku iibsan karno way meeqa xaba ay ku maalintii meeqa xaba ay dhagax oo noocan oo soo saari kartaan maalinkii yoomi wallahi maalintii ilaa iyo 30 ilaa ninkii ugu shaqo badan 40 xabo ha ninkii ugu shaqo badan meeqa group ma u shaqeysaan qof u shaqeysaan group aan u shaqeynaa sax intaan aad u jeedo group way sax qaar dadka qaar xagga ka shaqeeyaan qaar xagga saasay isdhaafsan yihiin oo wada shaqeynaa
oo group halkan hadda markaa ka dhamaataan oo hoolkan uu dhamaado sax ma calaamadaad ku garanaysaana jiro inuu hoolkan ka dhamaaday oo riskigiisa iyo khatartiisa aad ka fogaataan mise waxaad inuu iska sugayaa ilaa uu iska soo dhacay la sugayaa mise waa inta waad ka tashataan meel kale aad wallaahi calaamada garashadeeda waxa way adigu waxaad ka shaqeynayso adaaba garan karaa mugsinta sax waxaad adiga ka shaqeynayso adiga garan karaa xilliga dhamaay adaaba garan karaa marka hadda dhamaashadeeda waayba dhamaatay wixii hadda ka dambeeyay waxa leeyahay xagee kale aadaan oo buuro oo wax kale laga qodaa aagan kaliya mise waa meel kale jira magaalada meel kale way jiraan laakiin meel aan hadda aan garanayo ma aha laakiin waa la sheegay meel kale jira baaqaaga ugu dambeeya dadka ku daawanaya sax day ka mid tahay reer Jubbaland oo Soomaaliyeed guud ahaan sax maxaad u diraysaa baaq oo idin ka caawiyo aad rabtaan halkan niyo waxaan hadda meeshaan aan dhibaatadeeda na haysaa burtaan khatar badan iyo dhibaato badan aan kala kulannaa sidaas ay tahay waxaan u sheegayaa maamulka dhibaatada na hayso in waxaan anaga dhagaxa aan ku jabsano iyo nolol oo macnaha meeshaan waxaan aga kaaftoono in macnaha nolol raadiyo dhibaatada na hayso waad u jeedaan idinka wad arkaysaan waxyaabahan u baahannahay waxa waaye biyana waan u baahannahay musqulooyin waan u baahannahay sida hadda meesha naftirkeeda dhagaxan qalab lagu jaraa jirta ma haysano in dhagaxan qalabkii lagu jaray la naftirkiisa loo keeno u baahannahay maansooyin aan rabnaa raashin aan u baahannahay dhibaatada na haysa hadii horta ilaahay naga bixin karaa qof bini aadan mu maleynaa naga bixinay laakiin waxaan rajaysanahay in laga gurmudo dadka dhagaxa halkan ka qoda waxa xabadii laga siiyaa lacag gaaraysa ilaa 5,000 oo shilin Soomaali ah waxaana ka gata dad ganacsato ah oo banaanka kagala wareega marka ay banaanka iyagu keenaan cabdi waxa uu ka mid yahay dadka halkan ka shaqeeya biraha uu dhagaxa ku jabinayo waxa uu ku soo qaatay deen si uu halkan ugu shaqo tago ilaa ku roonyahay dhagaxeena macna ilaa ku roonyahay waxaan u jeedo waa arkaysaa wax gadmay ma aha ragiisa naqde dibna waa na haystaa dib yana haystaa waa arkaysaa dhibta inagu naga muuqato alaab ku shaqaysana ma haysana lacag oo deena la soo qaadaa lagu soo tumaalaha la tagaa lagu soo tumaay ma garad marka waxaana jajabin haynaa waa arkaysaa Jubbaland idinkoo tihiin waxaan rabnaa dadaal oo alaab in anaga caawisiin ya u baahanahay alaab in anaga caawisiin ya u baahanahay waa dhabaysanahay lacagna ma haysana galabtii eberkaana baxaynaa marka sino eberkayna ya baxaynaa marka intaas dhib ayna haystaa alaab la'aan waagnaha alaab ma haysin alaab waxa u baahanahay gaari gacan iyo sarur iyo maasa antaas u baahanahay iyo goon antaas u baahanahay waxay lagu shaqeynay sarur maaso goon antaas u baahanahay marka halkan qaabkee ayaa halkan iyo gaari gacanka oo dhagaxa lagu bixinay markano kaasna waa baahanahay waxaad nooga sheekaysaa marka qaabka aad wax u soo bixisaan halkan markaad gashaan qaabkan waxa uu soo bixinaa gaari gacan ku soo bixinaa dhagaxa kor la saareen dad kor saareen mugti dad waa qora dadna waa soo bixinaa waa ku shaqaystaaba marka sino marka xabadii oo 5,000 bis kaliya gadana lacagna waa na haysaa barihi wax ka gadana ma haysina marka inaan noo garaawtiino oo ilaa ku roon yahay gaarigaas iyo birtaas inaan noo keentiin iyo u baahan marka waxaan rabnaa inaan naga caawisiin alaawadaas iyo u baahanahay walaalayaalow alaab waan ku soo noqon doonaa waana fafaahin doontaa sax intaan alaabta gelin intaan alaabta gelin waxaan ka rabaa inaad nooga warantid markii aad gudahan gashaan qaybta kormiya in la soo qoday ama saan baa loo soconayaa qaybta kor waa la korayaa waa la soo dejinayaa markii la soo deji qaybta kor abaara la wadaa abaar markii socota markaas la soo dejina marka hoos dhulka la galaa marka sino buurta waa jeerarsan tahay waa go'aysa markii soo waa go'aysa hadda naf lacaari hadda aad ka baxdo macnaa ilaa ayaalka wax siinaysa malaha waxa laga rabaa gur kire iyo ku jirtaa ayaalkii gaaja haysa wax la haysta ilaah oome ma jiraan haddii maanta soo xirta adiga waa kuula jiiftaa dhagaxeena ma gadmahay waxa inta dharaaran dhagax waaye marka sidaas aawadeedana haysaa maalin ma laga heli kara waxa iga warda marka dhagaxa aad soo qodaan waad soo qaadaan halkan keentaan maxaa la idinkaga gataa yaa si ku wareejisaan yaa isku wareejinaynaa gaariya imaana iskuruga yaa lagu gadaa dhagax godata iskuruga lagu gadaa hadda halkan ma ka dhamaateen
buurta noocan mas'uul waxba idin ku weli waxba nooga jira weli waa ku shaqeynayna koomi joogta waxaan u jeed kor u soconaa hore u soconaa hoosna waa loo socdaa horna waa loo socdaa maxaa ka mid ah caqabadaha aad la kulantaan markaad dhagaxa jaraysaan dhagaxa jareen caqabadaha la kulannay horta dhagaxa ilaa ku roon yahay qodashiis waxba ma aha ilaas walaalayaalow birlacaana haysa lacagna waana haysa dhagaxay ma gadmahay markii hore waa noo gadmahay hadda dhagaxa gadmahay ma laha magaalada ciidan shameyn dal keenay bulkeeta la sameeyay dhagaxay ma gadmahay lacagna waana haysa ilaa ku roon yahay waxay ku shaqaysanayeen birihi ku shaqaysanayeen ma haysina meeqad ku guda jirtaa ka shaqeynta dhagxaanta in meeqad sano ama meeqa bilood oo anta shaqeynaysaa dhagxanba oo ku shaqeynaya sano ka shaqeynaysaa 3 sano ku shaqeynaya intaas aad ka shaqeynaysaa ma jiraan wax dhaawac oo ka soo gaaray iyo wax dhibaato dhaawac waa igu soo gaaray waa kana lugtaan anta kan dhaawac waay meeshana dhaawac waay waatana kan dhaawac waay maasa igu dhacday ma kasina garabka intana maasa ku dhacday goona soo fariiriya ku dhacay wiilna daraada la qaaday oo gacanta ka jabay isagana waan gartay wax dhacdo oo saaxiibada oo halkan ka shaqeynay oo waxyeelo dhibaato oo ku dhintay oo xasuusato ma jiraade anta ku xoraa ninka dhintay buurtan oo markii soo dumaysay oo istilaab kala saaray iyo anta ku hor ninka dhintay hadda tana laga bagahay kan habeena soo dhacay hadda tana laga bagahay buurtan tan oo soo dumaysay yaa laga bagahay tan tan gudaha taas laga bagahay hadda oo soo dumaysaa idinku ma jiraan astaamo aad ku garanaysaan markuu dumi rabo maxaa ku garataan ciida soo daadinay buryara soo dhacay markaas laga kala arara marka laakiin ka hore astaamo dilde waad ku garataan ma jiraan inuu dhici rabo waa jiraan afka kala qaadaysa ayada dhan afka kala qaadaysa hadda waa kana waa jeexantahay afka kala qaaday ciida soo xoogana dhagax yar waa daadinay markaas dadka dhan banaanka soo ordaayin intaas ay jirtaa maadaama ay dad ku dhinteen meeshan oo dad aad garanaysid ama asxaabtaada kamid ah idinku kalsooni cid ku qabtaan inaad gudaha ka shaqeysaan si cabsi idin gelisaa markaad shaqeynaysaan aniga hunguri nahay walaal hunguri dartiisa meesha ugu jirnaa hunguri nahay ninka dhamashadaas iyo waxas ma fiirin hayba hungurigaas una burana ayaa la ku joogan ilaa ku roonja haasa biil ka raw ayaa la raashin ka rawa guri kira ku jirta marka ma fadhiisin kartaa waa may waxa u baahanahay inaan naga caawisaan birahan idin sheegahay koonya maasa ii sheeg adi saruur gaari gacan raashina u baahana ayaalkan aan ku siisana intii ooneeto bilood aan ku shaqaysiinayna ayaalkan aan ku siisana gaajo intaas gaajo ana haysaa daawadayaal sida hadda idin muuqata waxaan hadda ku suganna god yar oo laga qodo dhagxaanta laga soo bixiyo godkan hadda aan ku suganna waxa ka sii dambeeya god hoose oo gudaha oo halkan hoose ah sida dabcan hadda idin muuqata halkan waxa ku jira rag fara badan oo halkan ka shaqeynaya waxa kamid ah ninkan hadda horteeda taagan aan godka uu soo galay adigoo raale magacaaga saddexan adigoo ku bilaabaya Cabdiqaadir Maxamed Yuusuf Cabdiqaadir halkan waxyaabaha aad ka qabataan sida ii muuqata waa meel hoolaho gudo dhagax hoostiisa ah qaab nooceeda halkan wax kaga soo saartaan والله اليوم ماشان أنا قرت واحد ماشان كوجين قرت إرساقة واحد رادين نقول بنو المعلومات كيسو أورو صحيح أنا حفيز أنت نوع كشق السنة أنا المعلومات كانوا سورة السنة عروت بريس كان عانينا أقصد حسنا مركن نرى المات ماش حفيز كان من عمر إنه حفيز كان وابا الكم صح ما قرت مركن نرى المعلومات كان هالكان وكجرا واحد بنا كم قبل الحمد لله وكفر حسنا هاي تن واحد كسيف وضع معناه زيادة إليه باقي سوقنا عادي وكا ما قلتي halkan muddo meeqa sano ayaad ka shaqeynaysaa dhagaxaanta muddo 8 sano ka shaqeynaa waan gartay oo dhagax maxaa dhib ka soo gaaray haday tamid caafimaad iyo mid saaxiibadaada ay wax ku noqdeen oo naftooda ku waayeen ama dhaawac ka soo gaaray ma dhimashay dhaawac iska jirta la samicnaa had wax buurtan had wax ku noqdo waa saddex dhalinyaro oo saaxiibo aan nahay oo ku geeriyootay oo maqaadir ilaahay inta ku dhacday buurta ana marar qaar waxa jirta in oo taymkeeda hadii la laafay soo fakanayso waa adigu waa mar nin walba horta banaan iyo gudaanka ku jira ninka tiis dhamaad nooc walba meel walba ku imanaya meel kasto malka kuma dhaafay la saad waa dhibaataas weyn aad ku sii qabno mal Allah ninka tiis soo dhawaad cid ka celin karta ma jirta banaankaas aad lagu cafinayn hadda dabcan mar hadda waxaan arkay adigoo banaanka ku tukanaya ma jirtaa goob
aad ku tukataan oo kale mise banaankaas qoraxda ayaad ku tukataan meel yaroo idin dhisano salaada ku tukataan maadaama yihiin dadka halkan dhan ka shaqeynaya muslimiin ay yihiin ma jirtaa ma jirto nin walba markaas meeshuu qodanayo godow ah sax iyo haaqanayo ku tugtaa waan gartay waa u baahannahay makaawada in masaajid loo suubiyo jamacada iskugu imaado dad baa jira xataa jamciya aan shaqo soo daayin oo nasiin ay sameynayno iska soo foofo waxaad ka shaqeynaya kaawa 300 waa ka badan yihiin sax hadda haddii masjid inta loogu dhiso hataa jamaca ahaan uu ku tukan karaan haddii loo baahdo sax tukashada qofka kaliya oo qaaska markuu shaqada ka soo baxo intuu goob yar xaqdo tukanayn waa laga fiican yahay waxay ku fiicanta salaada mujamaca siita in la iskugu imaado waajibka lagu fushado ma dhacday nin walba meeshu ka shaqeyn buu xaqda uu ku tugtaa hadda gudaha waxaa ii muuqday qof meel mugdi ku jiro tooshka ifaya sida guriga oo kale mugdi ah marka qofka tooshka halka buurta dhexdeeda ka sii muuqda muxuu ahaa waa nin hadda shaqahay sax muxuu ka shaqeynaya marka dhagax buu qoraya sax marka waa meel mugdigeeda aan mataqaanaa caadi wax loo sameyn karin in toosh la helay muhiimta tooshashaad isticmaashaan maalinkii muhiimku waa toosh waxaa yeelaa buurta hadda markay bilowday godka ku dhagan ilaa isu buqaan wax iftiin oo helaya male laakiin marka godadada isu duleelaan ayaga isku furmaya hadhow daba uma baahna toosh ayaga markaas iftiinka banaanka bay isticmaali karaan laakiin hadda waa lagu qasban yahay waa bilow in toosh aad qaadato waa shaqadaada ka mid tahay waan gartay ma idinku filan tahay halkan marka noloshiina iyo ma dabartaa waxa halkan aad ka heshaan alxamdulilah waxaan raadinaynaa waa umbariiskaas iyo caanaas wixii mustaqbal iyo kaasna ilaahay baa u qabnaa laakiin nolol maalmeedkan ugu faraxsan daawadayaal sida hadda aad u jeedaan buurtan korkayga ah oo arkaysaan khatarta ilada sida ay u dilaacday ragga dhalinyarada ee halkan ka shaqeeya maraan weydiiyo ku buurtani seed ku garataan waxyaabaha noocan oo kale markay dhacnay soo dumi rabto waxay u yiraahdeen marka calaamada noocan oo kale ay sida u dilaacdo macnaheedu waxay la mid tahay inay soo socoto oo ay dumi doonto kadibna waxay yiraahdeen waan ka wareegnaa goobtaasi laakiin waa goob riskigeedu uu aad u badan yahay oo garan karto qofka halkan inta galo halkan dhagax ka soo qodo khatarteeda waa garan kartaan waxa ka soo wajihi kara khatar fara badan oo laga yaabo inay naftiisa uu ku waayo mararka qaar waxa dhacday inay naftooda ku waayeen sida aan ogeyn ayaan hore waxa dhacday sida iyagaba ii sheegeen in gaari weyn iska rogo oo halkan soo galay iska rogihii iyo gaarigii dadka dhammaan ka shaqeynayay in dhammaantood ay halkan ku nafawaayeen ay waxa iga warantaa kareetadan ayaad saartaa soomaha dhagaxan kareetada saaraa meeqa ayaad ku qaadaa dhagax halka xabo ku shilin haye markani oo dib baa jiraan oo horta ilaahay uu dhibdhaam kow dheh maxaa marka aad marka halka xabo aad ku shilin ku qaadid meeqa xabo ayaad qaadi kartaa markii waxaa qaadaa 100 xabo sax waan gartay 100 xabo qaadaa haye oo gaadidkii ugu rasrabaan aan guri rabo sax ayaalkii raashin ay rabaan sax meeqa jeer ayaad maalintii wax qaadi kartaa waxaa qaadi karaa 2 jeer aan 2 jeer hadii meesha ay dhowdahay sax 3 jeer aan qaadaa meesha ay dheertaan 2 jeer sax waan gartay maxaa caqabada ayaad halkan kala kulantaa marka walaalow niyo horta meesha xaga ka shaqeynaya daawar kaabada sax sax ka shaqeynaya gudaha ku jirta miya dhagax ka soo qaaday kaabada kur sax inta wax kasto waxa ka arkay naxariis sidan iyo shaqadii hore iyo kan kee ku fiican labadooda wallahi tii hore tan tii hore ay fiicneed ee aad gudaha dhagax ka soo bixin jirtay taas ay fiicneed taas way kaaga faa'iido badan miya tan dib weyn oo qaba sax dib weyn ay haysatan waan gartay waxaad bulshada ku baaqaysaa yabahaasi waan u baahanahay laga caawiyo maxaad leedahay bulshada waxa uu dooda waxay dibkan oo macna anaga nahay macna nolol daryeelo wax oo ku shaqeysan la siiyo sax saas rabnaa waan gartay way gaad kan rafaadhay anana rafaadhay sax way waa ma santadan shaqada halkan gaadidkan oo gaar dameerka ku shaqeysta waka maxaa xabadka dhagax misad ku qaadaan xabadda dhagax ku shil ku qaadaan sax waka waan gartay kareetadan kaliya ayaad ka shaqeysaa oo aad ka ganacsataa mise waa dhagaxna waa jibin jirto dadkan aad ka mid ahayd gudaha maya kareetada kaliya aan ku shaqeystaa wali ku shaqeysan jiray sax waka meeqa sano ayaad ku wada jirtaa ka shaqeysigan marka ilaa 4 sano ilaa 5 sano waka meeqa halkii mar aad ku qaadaa abaalka halkii mar 100 xabo 8 si hadba neefku u kala xoog badan yahay waka maxay kugu qaadataa marka in aad gasho trip oo aad ka wado baashan صح hadba meesha sa u kala fog tahay ay u kala dheewdahay ay ku xiran tahay sidii dalcad oo kale haday tahay hadii hal jeer ama 2 jeer ka badan lama gali karo mar walba meesha sa u dhowdahay ay xaafada dhagax laga qaadaysa ugu dhowdahay waka waan gartaa hashan xabo marka kaarikay hasha kaarik waa 100 kun oo shil waka ha هذا هو نول مالمتكم بنكون مارينا الحمد لله وانا كمارة قبنا
haddii ay dowladda Jubbaland wax noo qaban kartana haddii waan jeclaan lahayn in wax inoo qabato arrintaas iyada ah. Cabbaas Cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay dadka dhagaxa ka gata shaqaalaha halkan dhagaxa ka soo saara, isagana waxa uu ka gadaa dadka guryaha loo dhisayo. barnaamijka muuqaalka ayaa wareystay Cabbaas. dhagxaanta aad ka iibiso qaab noocee ayaad kula wareegtaa? waxaan kula wareegaa niman shaqaale ah ayaa meeshaan dhagax kala soo baxa si dhib weyn ku soo saaraan. waa qabri wax laga soo baxayo kale markay banaanka soo dhigaan waan ka gadanaa 5,000 adu 6,000 oo shilin baan ka siinaa. asaasan dhagax u gadanaa waxaan geynaa magaalada. intaad u gudagalay magaalada dhagxaanta halkan aad ka qaadaan dadka aad halkan dhagxaanta idinka siiyay ee halkan ka soo bixiya bareyska mid aad guddig iyaga ka mid idinka aad jaangoysay mase si shakhsi oo shakhsiyaadka halkan wax kala soo baxa baad ula dhil gareysaan wax uga qaataan mase si guddi ayaa wax idinka gado? maya guddigi waxma nagama gado annaga u nimaadna waa ka gadanaa. sax waxaan ka sinaa maca gaariga maca dhagaxa annaga isku qabnaa. marka maxaa 7,000 baa lagu baa gaari ku qaada iyo xamaali gaariga noo rara. marka ayagu waxay kula soo baxaan lacag 5,000 bay kula soo baxaan. annaguna 7,000 baa ka siinaa maca gaariga. halkan markii lagu soo dhigo sida hadda gadaashan dambe dhagxaanta taalo adiga saad ii sheegtay aad iibsatay qaab nooca ayaad magaalada ku geysaan oo aad ku sii iibsaan? ma iibina guryaha lagu dhisaa. marka waxa la sii bicgeeya maaha waxa lagu dhisaa guryaha. marka iska roga la soo diraa iska roga 7,000 bay ku qaadaa ma xamaali oo 7,000 shilin. marka meesha si dhib ah oo dhibaato aad ah oo macadad ku leeday baa lagu soo saaraa ayadoo waliba dad badan ay ku leedeen oo dhagaxa ku dumay oo cidna dadkii maca dhintay ee heladoodii aan cidna wax u qaban baan anagu laftiyo wax ka qodnaa markii ay dhimato. marka halkan dhagaxa markaad qaadaan 7,000 buu adiga kugu fadhiya oo halkan dhagaxa kaga qaado maca gaariga markaad geyso oo la dhisayo imse laga siiya? lagama gado marka guriga lagu dhisayo way markaan gadano. sax marka guriyaha lagu dhisay sheegay markaas kama gado. dadka guriyaha dhisanaya baa soo qaada oo lacagta bixiya. marka shanta gaariga iyo xamaaliga raraya waa 7,000 ayagu maca gaariga rarkiisa maca iibkiisa 7,000 shilin weey. maxaa adiga ku saaran marka oo faa'iido yar oo ka heshaa maadaama saad sheegtay waxaan dhagaxani aadan magaalada geynaynin oo xarun uu leeyahay aan dib lagaaga sii gadayn oo ay tahay halkan inuu gaariga yimaado oo ninkii dhagaxa guriga ku dhisanay uu halkan kugu imanayo muxuu ka siinay adiga ku saaran? aniga ku shilin bay saaran. ku shilin ku saaran waan gartay. maxaa caqabada oo aad kala kulantaan ama aad ka sheeganaysaan dabcan qaabka la idinkaga wareego aad leedahay dhibaataan ku qabnaa? dhibaato xoog laan ku qabnaa. waxaan u qabnaa dawladda Soomaaliya gaariga markii uu qaadanayo ma ahaan lacag laan ku qaadi jiray waago qaarigu qaadanayo lacag laan ku qaadi jiray isagoo qofka gurigiisa jooga loogu keenay jiray. marka waxa kharash oo meesha yaala intaas kale ku go'ay jiray laakiin kharash uguma tagi jirin qof gadanaya free baa loogu qaadi jiray. marka waxaan rabaa marka aan codsanayna maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka codsanayna nimankan muruqmaalka wixii dhagaxa kula soo bixay ayagu naftooda ay ku badbaadi lahaayeen in loo sameeyo. oo meeshan waxa ka shaqeeya dumar waxa ka shaqeeya niman muruqmaala oo waxa weeye carabawday dumarka halkan ka shaqeeya hadda aad noo sheegtay qaab noocee ay dumarku u shaqeeyaan ma la caawiyaa? dabcan intaan hadda shaqadan ku guda jirnay dumar wax karinaya oo halkan fadhiyaan aragnay qaab noocee ay halkan uga shaqeeyaan? sida nimanku tuutaha ay u qabaan baalkii surweelka iyo shaarka ba iyaguna u qabaan dhagaxa iyaguna fujiyaan. marka sida kun nimanka u shaqeynayaan bay iyaguna u shaqeynayaan. marka macaamil dumarka ka shaqeynayo dhibaatada hadda waad arki doontaan inaad arki doontaan laga yaaba waxa weeye adiga ma naxayaba sida dumarka ay u shaqeynayaan. marka waxaan codsanayna marka baashan dawladda Soomaaliya qalab bay lahaan jiray lagu jabiyo oo dhagaxa lagu jeexjeexo. marka dhagaxa uu la jeexjeexana waa la qori jiray wax dhib ah oo khasaaraha kama soo raaci jirin. hadda 20 waa dhanta hadda inta dawladda burbudhay inta qof ku dhintay meesha lamana arko qofku markuu ku qarxa meesha oo in cagafyo inta loo keeno ay qodaan mooyee cid yaani farakaso ku soo saari kada ma jiraan. adigu marka meeqa sanad halkan ka shaqeynayso dhaxantan aad iibsanaysaa ama aad gudaha ka shaqeynaysaa? wax badan oo 5 sano. sax waan ka shaqeynaysaa. waxaan ka codsanaynaa in qalabkii lagu dumin lahaa meesha oo lagu jeexjeexi lahaa oo anaguna dhibtayada u yaraan lahayd in aan naloo keeno
oo hay'adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa in ay garab naga siiyaan saaqadeeda meesha gashay in ay garab naga siiyaan oo ay noo jecjecaan sida naga caawiyaan si dawladda hore Soomaaliya ay nooga caawin jirto kale waan gartay inta halkan ka shaqeynaysa maxaa dhacda oo xanuun badan oo ka soo martay haday aan leed saaxiibo aan taqaan oo halkan ku dhintay maxaa ka xasuusataa intaad ka shaqeynaysa waxaan ka shaqeynay dab khasaaro weyn baan soo arkay oo rag badan oo si u qodayeen meeshii ay ku duntay oo laba bilood la qodayay lafooda iyagoo eber laga soo saaray oo aan saaxiibo ahayn oo aad wax uga gadan jiray marka khasaaradaas ugu badnaa waliba dad hadda laftigooda waa sii qarxaysaa haddii aan aad looga soo gaarin khasaaro badan baa ka imaanaysa marka caalamka waxaan ka codsanay iyo hay'adaha caalamka waxaan ka codsanay dawladda Jubbaland iyo dawladda federaalka inay si dhaqsala ay nooga caawiyaan meesha dadka halkan ka shaqeeya waxaa dhibaatada dhagax jabinta u dheer dhibaatooyin kale oo ma haystaan biyo ay cabaan musqul iyo sidoo kale goob ay ku cibaadaystaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku codsanaynaa dadka oo deegaanka dawladda magaalada ka talay marka ugu horo meesha nadaafad xumo horta waad u jeedaan wixii xaarkii iyo balaayadii iyo kaadii meeshan waa loo jooglayahay waxaaba laga yaabaa inuu cudur iska dhashay مسقول مساجد إلهي بيت إلهي هرت إن الله لساق عسلين تكلا قري الله سبحانه وتعالى يا الله قبورت أنا أسكي حملنا لكن سبحان الله قدرن مسجد بقول قوي ماشي أو كش خير مسجد الآن واي إن مسجد الله دس مسقول الله يلا ما أدم أمس ما يسن تاسنا كاين يجي قصيصة أو ما أدم لوس ما يست وبين الوقت ما بحوا براي واحد لوس ما أي هرت مهم دنوع أرزاق الله سبحانه وتعالى يا الله قبورت أنا أسكي حماشة ماشي وأسكي جدي حال دلع على واحد وأسكي جدين مدي كلو وحوا يرجعوا وحي وباهيهم مساجد مالك كنت كلام هاستان مسؤول ما هاستان وأجد نظافة سيدا أيته مركا الحمد لله وحي كلام إله وخبنا أنك دولتنا وحن كعسل يعني سيد ما أرتاء ومكينوين وحن رجع كوجي بينه أما قارج عن حتى بذيلا عن كعسل الدولة مجران wax idin yimid oo wax idin keena ma jiraan wax soo gaarsiiyay ama idin ka balaqaad inta idin yimaadeen waxba aan kala qabanayna baahida idin ku yiraahdeen jeer inta jeer waana la duubay oo television adiga waa naga baahi in ma arta bulshooyinta waa ayna aragto anaga buurta nagala naxiyo dhibaato ay nooga imaato oo waxaan ka shaqaysanay walba asna yiraahdo mooyaan wax hadna wax noo keenay ma aragno ilaa waxaan ka codsanaynaa dawladda inay masaajid noo dhisto masaajidkaas ummadda hadda meesha joogto muslimiinta wada ah inay ku dukadaan dawladda ayna saasaan ka codsanaynaa waa mahadsantihiin adiga iyo dhammaan inta halkan ka shaqeysa dabcan waxaan filayaa fariintani inay gaari doonto dhammaan bulshada oo iyaga laftooduna ay cabiri doonaan dareenka dadka halkan ka shaqeeya kuna caawiyaan waxyaabaha ay u baahan yihiin dadkani oo asaasiga bulshada waxyaabaha ay u baahan tahay dabcan meel masaajida oo lagu tukado dadka muslimiinta meel baahiya iyo noocan oo kale in laga caawiyo way u baahan yihiin waxaan filayaa dadku inay barnaamijkan markay daawadaan kadib ay wax ka qaban doonaan haddii Ilaahay raado annagana aan ku rajooyn waxa aan u gudbinayna fariintaasna waa bulshada TV-ga hadda idin soo booqday waa TV-ga dawlad goboleedka Jubbaland waxaan filayaa markii dadka reer Jubbaland dhammaan meel walba joogaan ay barnaamijkan daawadaan in ma taqaanaa ay haddii Ilaahay raado ay ka soo joobi doonaan daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii muuqaalka Jubbaland ee toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynay dhagax jabinta magaalada Kismaayo oo halka looga keeno guryaha magaalada Kismaayo dhagxaanta lagu dhiso daawadayaal barnaamijka waxa idin la socodsiinayay anigoo Cabdiqaadir Maxamed Cali dhanka kaameraduna waxa uu ahaa saaxiibkay Cabdullaahi Maxamed Sheekh Soomaali Boy farsamaduna waa Ilhaan Maxamuud Cabdi tani inta aan barnaamijkan mid lamada ku kulmi doono waxaan dhamaanteed idin kaga tagaynaa sida iyo nabad galiyo